السلام عليكم. qof kasta uu jecel yahay inuu naftiisa horumariyo korna u qaado shakhsiyadiisa iyo wacyigiisaba isla markaana kobciyo qiimaha noloshiisa. Horumarinta naftaadu waa inaad qaado tallaabooyin aad ku wanaajinaysid naftaada adoo baranaya caadooyinka wanaagsan kana hadhaya koox xun. Majaalka horumarinta aadamuhu waxyaabahan soo tilmaanay iyo arrimo kale ayuu koobsadaa. Fanniganna maaha mid takhasus lagu yeesho se wuxuu ku saabsan yahay xirfado iyo tijaabooyin la soo daraaseeyay. xirfadahan iyo tijaabooyinkan ayaa ah qaar faa'iido badan u yeelan doona noloshaada haddii aad dabaqtid. Majaalkan waxa laga qoray buug aad u tiro badan. Muuqaalka maanta waxaan idinkula wadaagi doonaa 5 ka mid ah buugtan oo ah kuwa ugu cadcad uguna waxtarka badan. Sidaad u ogaatid nala soco. What Everybody is Saying by John Navarro. buuggan shayga ugu muhiimsan ee uu ka hadlayo ayaa ah luqadda jirka. Sababta aan ugu soo daray 5 buugna waxa weeye inuu ka hadlayo xirfad muhiim ah oo aad baran kartid kuna horumarinaysid naftaada. Luqadda jirku waa nooc ka mid ah hadalka aan dhawaaq lahayn, kaasoo qaybo ka mid ah jirku inoo soo gudbinayo ama muujinayo macluumaad gaar ah. Mowduucanina waa mid aad loo xiiseeyo. buuggan waxa qoray John Navarro, kaasoo ah mid 25 sano u soo shaqeynayay FBI-da Mareykanka. noloshiisa intiisii ugu badnaydna wuxuu ku qaatay dabaqidda iyo barashada culuumta luqadda jirka. wuxuu ku dhashay Kuuba. markuu 8 jir noqdayna isaga hooyadii iyo aabihiiba waxay u safreen United States, xilligaas oo uu gabi ahaanba luqadda Ingiriisiga jaahil ka ahaa. muddadan ayaanu u aaneynaya barashada xirfaddan, iyadoo sabab ay u ahayd jahligii uu ka qabay luqadda. isagoo isla markaasi u arkayay jirka bini'aadamka xaashi cad oo laga bogan karo sida uu qofku u fikirayo iyadoo la eegayo dhaqdhaqaaqiisa jidheed iyo muuqiisa. buuggani nooma sheegayo sidii aynu ku ogaan lahayn qofka beenaalaha ah, balse wuxuu naga caawinaya qaabkaan u qeexi karno marka uu qof tilmaamaha xasilooni la'aanta muujinayo halka uu hadalkiisuna yahay shay ka gedisan wixii aynu ku aragnay. qoraagu buugga wuxuu kusoo tabinaya dhacdooyin kala duwan oo soo maray markii uu FBI-da la shaqeynayay, markaas oo uu kiisas adka ku xaliyay xirfadiisan, kuwaas ayaana xiiso gaara u yeelaya buuggan. buuggan sidoo kale wuxuu kaa caawinaya inaad noqotid qof u fiirsashadiisu sarreyso oo waxa kuu soo baxaya waxyaabo aanad hore ahmiyad siin jirin. Navarro mid ayuu u dul istaagay qaybaha kala duwan ee jirka bini'aadamka, waxaanu na tusaya sida loo fahmo dhaqdhaqaaqooda iyo dhaqdhaqaaq la'aantooda iyo waxay noo tilmaamayaan. sidoo kale wuxuu na tusaya in barashada luqadda jirka aan loo adeegsan maamulidda dadka, balse loo adeegsado sida dadka loo fahmo. tusaale, inaad aragto xasilooni la'aanta qof kale markaad wada hadlaysaan waxay kuu ogolaanaysaa inaad ogaatid muhiimadda ay leedahay in mowduuca aad ka wada hadlaysaan aad bedesho amaba isku daydo inaad wax ka fahanto xasilooni la'aanta qofkaas. Atomic Habits, caadooyinka yaryar. waxyaabaha ugu waaweyn ee aad isweydiin kartid ayaa ah in caadooyinka aad leedahay hore ku wadaan ama dib ku riixayaan. caadooyinka aad leedahay waxay go'aamiyaan mustaqbalkaaga. sida caadooyinka wanaagsan ay kuu horseedi doonaan guul iyo nolol wanaagsan, ayay caadooyinka xumina sabab u noqon doonaan guul darro iyo waxyeelooyin soo gaari doona. caadooyinku waxay kala saaraan kuwa xaqiijiya wixii ay ka doonayeen noloshooda iyo kuwa kaliya ka hadla yoolashooda. iyadoo ay jiraan buug badan oo ka hadla mowduucan caadooyinka, ayuu haddana yahay kani mid ka soocan. buuggan waa mid akhrintiisu ay ku fududaan doonto, si fiicanna loo qoray. waxa qoray James Clear, wuxuuna tilmaamayaa falsafad ka duwan kuwii hore oo guusha lagu gaari karo, taasoo ah beeridda caadooyinka yaryar ee wanaagsan. cid kasta ma dhammaystiri karto hawl weyn ama mashruuc yaala, laakiin qof kasta waxa uu ka bedeli karaa caadooyinka yaryar ee uu leeyahay. qoraagu buugga daraasad weyn ayuu ku soo koobayaa 4 tallaabo oo aad ku bedeli kartid dhaqamadaada, kuwaasoo ay aadna u fududahay dabaqidoodu, isla markaana kuu noqon doona qalab awood badan oo aad ku yeelan kartid caado wanaagsan iskana reebi kartid caado xun oo aad leedahay. buuggan akhri haddii aad doonaysid inaad noqotid qof wax soo saarkiisu badan yahay. How to Win Friends and Influence People, waxa qoray Dale Carnegie, waxaanu ka mid yahay buugaagta loogu iibsiga badan yahay caalamka oo dhan. waa buug ay dad badani ka faa'iideen. buuggan mowduuca ugu weyn ee uu ka hadlayo ayaa ah qaabka dadka loola dhaqmo. waa mid ay akhrintiisu aad u fududahay, waxaanu qoraagu soo qaadanayaa tusaalayaal iyo sheekooyin xiiso leh oo kaa caawin doona inaanad ilaawin qodobada buuggu ka hadlayo. qoraagu buugga 4 qaybood ayuu qayminaya, qayb kastaana qodob hoosaadyo ayay leedahay. qaab qoraalka buugga ayaa ku muujin doona inuu qoraagu ahaa mid khibrad weyn u leh cilmi nafsiga iyo culuumta la xidhiidha. buuggan oo aad akhridaana wuxuu kaa dhigi doonaa inaad sii baadhid buugaagta kale ee qoraaga, sida Jooji Walwalka oo nolol cusub bilow, Tabaha hadalka iyo qaar kale. buuggan xitaa haddii aad waqti u weydo akhrintiisa, isagoo cod ah ayaad ka heli kartaa YouTube-ka iyo meelaha kaleba.
isagoo aan soo koobkoobay 4 xalqadoodna aan ka diyaariyay waxaad ka heli kartaa channelka inkastoo ay akhrintiisu ka faa'iido badan tahay. buuggan akhrisaad u wanaajisid xidhiidhada dadka aad la leedahay iyo qaabkaad ula dhaqantid. Think and Grow Rich, fikir oo hodan noqo. markuu sanadku 1908 Napoleon Hill wuxuu u tagay Andrew Carnegie si uu ugala tashado mowduuc uu ku qoro jaraa'idka. kadib ayuu Carnegie ku challenge gareeyay Hill inuu buug ka sameeyo falsafada guusha, waxaanu kula taliyay in waraysi ka qaado 500 nin ee markaasi Mareykanka ugu maalqabeensanaa sida Henry Ford, Thomas Edison iyo rag kale oo la mid ah. Hill ayaa 500 nin ka waraystay sidii ay u gaadheen halka ay taagan yihiin. natiijadiina waxay noqotay inuu soo baxo buuggiisan adduunweynaha laga yaqaano, isagoo markaasi waraysigii ku soo koobay 13 qodob oo ka dambeysay guushii raggaas. marka laga yimaado ciwaanka buuggani kaliya ta kaama caawinayo qaabka dakhligaagu u kordhi lahaa, balse wuxuu kaa caawinayaa inaad aqoon u yeelatid qaabkii iyo wadooyinkii ay dadkaasi guusha ku gaadheen. buuggan wuxuu saldhig u yahay buugagta kale ee guusha iyo wixii la xiriira ka hadla, oo waxaad buugagta kale ku arki doontaa qodobadii buuggan oo ay la fagurayaan amaba si kale u dhigeen. buuggan meelaha uu awoodda saarayo ayaa ah qaab fikirka qofka, kaasoo qayb weyn ka ah falsafada guusha. buuggan waa mid cajiib ah oo aad wax badan ka faa'iidi doontid, isla markaana kugu dhalin doona inaad inuu wax qabsatid, isagoo Soomaali ahna waad heli kartaa. 7 Habits of Highly Effective People, 7 caado ee dadka waxtarka leh. waxa qoray Stephen Covey markuu sanadku 1989 waxaana la oran karaa kaalinta koowaad ayuu ugu jiraa buugta tirada badan ee laga qoray majaalkan, waxaana laga iibiyay in ka badan 25 milyan oo nusxadood. Covey ayaa soo bandhigay qaabkaad u noqon kartid qof waxtar leh dhinacyada kala duwan ee noloshaada adoo adeegsanaya 7 caado. qoraagu wuxuu kuu soo gudbinayaa fikrado iyo aragtiyooyin uu muddo dheer soo daraasadeynayay. 3 caado ee ugu horeeya ayaa ku saabsan inaad naftaada hoggaanka u qabatid iyo ka gudubka inaad ku tiirsanaatid qof kale una gudubtid marxaladda madax bannaanida. caadooyinka 4, 5 iyo 6 waxay ka hadlayaan wada shaqaynta, wax wada qabsiga iyo xiriirka dadka aad la leedahay oo ah ka gudubka madax bannaanida iyadoo loo gudbayo isku tiirsanaanta iyo isku duubnida. caadada 7 ee ugu dambaysa ayaa iyaduna ka hadlaysa koritaan joogto ah iyo horumarinta 6 caado ee kale. buuggan wuxuu kaa caawinayaa qaabkaad u kor lahayd jidh ahaan, maskax ahaan, dareen ahaan iyo bulsho ahaanba. waa buug haddii aad akhridid aad si qoto dheer ugu baran doontid naftaada. 5 buug iyo muuqaalka maantaba intaasi noogu eegyihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.